الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي walaalba waa idin salaamaya cafiya caafimaad iyo barwaaqa allah ina siiyo meel kasta waa kastaan joognana allah ina barakeeyo allah ina ku xifdiyo allah ina ku dhowro ilaahayna hayna salaamaya la rabbi subxaanahu wa tacaala jalla fi cula jalla jalaaluh. waxaan rabaa caawiynaa in silsiladii inoo soo socotay oo udgoonayd oo carfoonayd oo cadarku ka buuxay ummahaadkeena ridwaanullaahi tacaala ajmaciin inoo kusoo horeeyeen gabdhihii maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam eedooyinkiis ridwaanullaahi tacaala ajmaciin dhammaantoodba iyo saxaabiyaadkii ansaar iyo muhaajiriinba leh ilaahay raalliha ka wada noqdee macoodana allahayna ka dhigee allahna inala kulmiyo saan adduunka ula saaxiibna aakhirana allah ka dhigo rabbi subxaanahu wa tacaala kuwa jannadii rabbigeena kula kulmay iyo maca xabiibkeeni salawaatullaahi wasalaamu caleyh ridwaanullaahi tacaala ajmaciin. waxaynu caaway ka qaniimaysanaynaa oo marti inoo ah qofta la yiraahdo gabar ansaariyada oo awsiyada waxaa la yiraahdaa gabadhan magaceeda bismillah allahumma salli calaa maxamed asmaa bintu yasiid ibnu sakan radiallahu tacaala canha waarda. waa gabar reer cabdi ashhal ah ibnu xaaritha, waa ansaariyad, waa awsiyad, waa ashhaliyad weeye gabadhani waxa weeye dadkii maaragtay ugu horeeyey oo islaama ayay ka mid ahayd. ilaahay raalliha ka noqdo rabbi subxaanahu wa tacaala jalla fi cula. magaceeda kunyadeeda waxaa lagu kunyeyn jiray gabadhan umu salamata ayaa la dhihi jiray, ama waxa kaloo la dhihi jiray umu caamirna waa la dhihi jiray al awsiya. gabadhani nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay la baayactantay oo ay maaragtay nabigeenu sanadii u horeysay uu yimi soo hijrooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine yimi ayay maaragtay u timi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la baayactantay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof waxay ahayd aada u cilmi badan waxayna ku islaantay maaragtay waxay ahayd dadkii ku islaamay muscab ibn cumayr radiallahu tacaala canhu ardaah markuu magaalada madiine yimi la-ana reer aws dad badan ayaa ka islaamay la-ana ina adeerkeed ayuu ahaa saxaabigii jaliilka ahaa ilaahay raalliha ka noqdee oo sacad ibnu macaad ina adeerkeed asagaana madaxa wuxuu u ahaa reerka dhan ayuu madaxa u ahaayo ah reer awsiyiinta ah isagaa sayidkooda ahaa marka ilmo adeer bay ahaayeen baa la dhahaa. aabaheed saxaabi buu ahaa yasiid ibnu sakan allah raalli ka noqdo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam difaacday oo garabkiisa ahayd oo dagaalkii uxud ku shahiiday ayuu ka mid ahaa ka run sheegay oo ansaariyiinta ahaa beecadii ay rasuulka la galeen calayhi salaatu wasalaam. marka aabaheed saxaabiga jaliilka buu ahaa, iyaduna saxaabiyad jaliilay ahayd. waxay ahayd qof caqli u saaxiib ah iyo diin iyo hadal wanaagsan oo aftahana aad maaragtay u leh xigmad u leh ayay ahayd ilaa loo bixiyey ee qaadatay naanaysta ah khadiibatu nisaa tii maaragtay haweenka u hadli jidha afhayeenka u ahayd asmaa bintu yasiid radiallahu tacaala canha warda. aad baan u jecelnahay ilaahay ha jeclaado asmaa. magacan asmaa waxaynu xasuusanaa hadda aynu soo marnay asmaa bintu abubakar baynu soo qaadanay siiradeeda allaha raalli ka noqdo. asmaa bintu cumays oo qof cajaa'ib laynu soo qaadanay. nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhihii asmaa la dhihi jiray gabdho waxay wada ahaayeen karti iyo adayg iyo geesinimo iyo cajaa'ib ilaahay ka muujiyey iyo aftahannimo iyo diin iyo akhlaaq ilaahay wada siiye bay ahaayeen, cilmi u wada saaxiiba. waxaynu xasuusanaa asmaa bintu abubakar radiallahu tacaala canha wardaa siday maaragtay fircoonkii ummaddan abujahal siday iskaga celisay siday u hor istaagtay iyo tii ka dhacday hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam siday u diyaarisay aabaheedba allaha ka raalli noqde sida iyadoo weliba xaamil ah ay dhexda ugu dhuuqsanayday maaragtay ilaa 2 suunley dahaba ay noqotay mid helaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala u siinayo jannada. marka qoftaas waa asmaa bintu cumays baynu iyadana soo qaadanay oo cajaa'ibta iyo khayrka ee lahaydaynu aragnay qofta dhan oo markay umushayba xajul wadaac nabigu markuu soo xajinay calayhi salaatu wasalaam meel wixii kale dhanba madaa kasoo tegdid bal qof umushahadaan iyadoo 9 bilood ah xajkii nabiga usoo raacday calayhi salaatu wasalaam markii dulxulayfa la marayana halkaa ku umushay haddana dhexda sii xiratay oo qubaysatay halkaa xajkeeda ka xarmatay. yacni geesinimada intaa la ka warna cajaa'ib dad yacni adayg iyo karti iyo nimco badan ilaahay ka muujiyey iimaankii ilaahay u siiyey. waxaa kaloo jidhay asmaa iyaduna oo cajiib leh abujahal hooyadii cajiib soo ma aha.
asmaa baa la dhihi jiray way soo islaantay ka warrama abujahl hooyadii way islaantay saxaabiyad weeye abujahl hooyadii islaantay oo hijrootay wiilkeeda cayaashiyo ridwaanullahi tacaala ajmaciin maaragtay wiilasheedii kale usoo islaamaya iyadaba ilaahay raalliha ka wada noqdo ridwaanullahi tacaala ajmaciin sidoo kaleeto saxaabiyad bay ahayd marka abujahl hooyadii way islaantay asmaa baa la dhihi jiray marka dad waxay wada qof aad iyaduna u karti badan ayay ahayd marka asmaa bintu yasiid bayna hadda siiradeeda ku jirnaay allah raalli ka noqdee nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimi way u tagtay iyada iyo maaragtay xawaa bintu yasiid oo maaragtay walaasheed ahayd iyo iyaduba way israaceen allah raalli ka noqdo nebiga ayay u tagan iyo gabdho kaloo saxaabiyaad ah nebiga ayay lasoo sacad ibnu macaad maaragtay hooyadiis iyo iyada umu qays way iswada raaceen waxay u tageen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo la baayactamaya nebigu waa la baayactamay maaragtay qof maaragtay ilaahay nebiga way dhegaysatay calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd guryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ummahaadka mid ku wareegta mid caawinta mid danahooda iyo xaajooyinkooda u qabata iyadoo nebiga ka carafsanaysa oo uga dhowaanaysa cilmiga iyo khayrka inay ka qaadato axaadiis badan bay nebiga kasoo warisay calayhi salaatu wasalaam ilaa 81 xadiis lagu tilmaamo qof marka cilmi badan oo muxadathada oo rasuulka ka warisay calayhi salaatu wasalaam oo dhegaysato oo maqashay ayay ahayd la baayactantana nebiga calayhi salaatu wasalaam sanadkii u horreysay hijriga mujaahidad bay ahayd jaliilada oo ilaahay subxaana wa tacaala xataa waxay raaci jirdhay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu qaswooyinka aaday way raaci jirdhay iyadoo maaragtay kuwa dhaawaca waraabinaysa cuntada u diyaarinaysa ciidamada maaragtay dhaawaca daweynaysa duubaysa hawl haddii loo baahdana dhinaca ka gelaysa dagaalka cajaa'ib bay lahayd qof aad u cajiib badan bay ahayd waxyaalaha cajaa'ibta leh ay samaysa waxaa ka mid a maalin maalmaha ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam inay maaragtay u timi oo saxaabadii ragga ahaa la fadhiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u timi ayay waxay ku tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenkii baa soo dirsaday haweenkii bay afhayeen u ahayd haweenkii bay u hadlaysaa waxay tiri iyadoo la hadlaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ku tiri nebigii allow rasuulkii allow salawaatullaahi wasalaamu caleyh anigu waxaan ahay mid kaaga soo waftiday oo ka socota dhinaci haweenka xaggaaga maaragtay war yacni arrintii bay usoo bandhigaysaa dumarkii bay u hadlaysaa ayaan ahay bay tiri ilaahay subxaana wa tacaala bay tiri ilaahay wuxuu kuu soo diray bay tiri ilaahay casa qaalib ahay oo jalla sarreeya wuxuu kuu soo diray rag iyo dumar buu ilaahay kuu soo diray dhammaanba annagu waxay tiri waanu ku rumaynay siday raggu kuu rumeeyeen ayaan kuu rumaynay haddaanu nahay kulankii dumarka haddaanu nahayna kuwo waxaanu nahay guryihii ku xabisan oo guryihii fadhiya oo guryihii jooga oo maaragtay danihiina iyo xaajooyinkiina idiin fulinayo idiin samaynayo waxaad u baahantihiin xataa maaragtay waxyaalaha aad u baahantihiin nafsiyan wax kasta idiin qabanaya ayaanu nahay kuwa uurka idiin qaadaya ayaanu nahay kuwa awlaadiina hadhow xambaaraya markay dhalaan oo nuujinaya ayaanu nahay mas-uuliyadoodii guriga haya kuwa waxaanu nahay raggiina waxay tiri waxaanu nahay kuwa maaragtay guryihii jooga cuntada idiin karna wixii guriga dee looga baahnaa dharka idiin dhaqaaya maaragtay idiin wixii oo dhan hawlah idiin haya ayaanu nahay oo markaad maqantihiinna guryihii mas-uuliyadoodii annagaa sii hayna oo maaragtay haddii ari jooga haddii geli wixii dhan waraabinaya oo hawshii guriga dhan iyo tii bannaan wixii dhan isku qabanaya amaa raggii bay tiri annagu hawshaas markaanu joogno oo aanu hayno oo khidmadiinna iyo khayrkiina aan ku jirno waxay tiri oo sidaa guryaha idinkugu joogno haddii raggiina adinku haddaa raggii tihiinna waxaa nagaga ajar iyo khayr naga badateen oo aad aadaysaan jameecooyinkii maaragtay baad aadaysaan jameecooyinkii baad xaadiraysaan maaragtay jimcayaashii adinkaa xaadiraya jamaacaadkii kale oo salaada adinkaa xaadiraya 5 waqti soo tukanaya haddana waxaad soo booqanaysaan dadkii xanuunsanaa baad soo booqanaysaan haddana waxaad xaadiraysaan janaasooyinkii baad tegaysaan oo tukanaysaan haddana dadkii baad soo aasaysaan ajaradii oo dhan baad qaadateen xajkii baad aadaysaan haddana xaj kalaad aadaysaan cumradii baad aadaysaan cumrooyinkii baa intaa usii socotaan haddana waxaasoo dhanba waxaa isku sii fuuqsaday bay tiri haddana oo maaragtay fadli dheeraada iyo khayr siile jihaadkii fii sabiilillaah adinkaa ilaahay jidkiisa ku jihaadaya casa qaalib ahay wajalla sarreeye adinku maaragtay waxaasoo hawlana adinkaa wada qabanaysiin waxay tiri marka waxaaseeto khayra iyo wanaagga markaad qabanaysaan ninkiinnii markuu baxo marka
oo maaragtay uu jihaadkii aado oo khayrka u baxo oo waxaasoo hawla qabanaya annagaa guryihiinna idiin ilaalinayna xoolihiinna annagaa idiin ilaalinayna dharkiinna annagaa idiin tolayna annagaa idiin dhaqayna waxaasoo mas-uuliyada annagaa idiin sii hayna ya waxaasoo mas-uuliyada annagaa idiin sii hayne oo carruurtiina korinayne xanaanadoodii hayne waxa weeye waxaas aan annagu miyaana marka idinla wadaagayn waxaasoo ajar ah aad adinkuna soo shaqaynaysaan aad ku maqantihiin ma idinla wadaagna annagu qayb ma idinkula leenah ya markaasaan markii hadalkeedii dhammaysatay asmaa radiallahu tacaala canha wa ardaa baa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo baa nebigu xaggii ragga intuu u jeestay buu nebigu wuxuu ku yiri saxaabadii la fadhiday buu wuxuu ku yiri war ma maqasheen buu yiri maqaalo qof dumara ay tiraahdo oo diinteedii warsanaysa arrimihii diinteeda iyo danaheedii iyo ka hadlaysa aakhiradeeda iyo adduunkeeda ka sheekaynaysa khayrkii ee heli lahayd midaanoo kale wax miyaad weligaa tan wax ka fiican hadalkan iyo maqaaladan miyaad weligeed maqasheen gabar arrinteedii diinta iyo sidaas uga hadlaysa markaas waxay dhaheen raggii saxaabada ahaa dawaa la iscuncuna meeshaan ma ogta waxa leeyahay duma maxay gabadhani waaba adinkayba barbarkiinayba soo istaagtay maxay ka hadlaysaa yaa ragga carbeed hadda meesha jooga meeshan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadii nebiga shaqaynaysa calayhi salaatu wasallam nebi maxamed calayhi salaatu wasallam baa meesha fadhiye alxamdulillah ilaahay baa noo hadlay iyo nebigiisa calayhi salaatu wasalaam markaas raggii waa la iscuna waxa leeyahay maxaa lagu hadlay maxay ku hadlaysaa tani markaas waxay dhaheen oo rasuulkii allow calayhi salaatu wasalaam maba aanu u malaynaynin inay dumarku sidaa u hanuunsan yihiinoo waxyaalaha sidaas uga hadlaayo tartankaasba ku jiraan camalan ha waa ujeedaa meesha waa la iscuncunay raggii markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo ku farxay arrintaa wejigiisu dhalaalay aad ugu farxay in gabdhihii mu'minaadka ay maanta hamigooda arrintaa aakhiriya adduunba ay sidaa uga fekerayaan dantooda ay xisaabtaa ku jiraan ay xisaabtamayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam orotag buu yidhi maaragtay asmaayey orotag buu yidhi ogeysiina dumarka kaa dameeya wixii dumaroo kaa dameeya waxaad ogeysiisaa intaa aad soo sheegtay oo khayra intaa ilbaabada khayrka dhan aad soo taxday ya midiina keliya maaragtay midiina keliya wanaagga ay dumarkoo dhanna ogeysii buu yidhi intaasoo wanaaga iyo intaasoo khayra waxa u dhiganta oo maaragtay aad xasanaada iyo wanaagga adinkuna aad ku helaysaan wanaagga ay midiinna wanaajinaysa ninkeeda wanaagga ay wanaajinayso ay ninkeeda raadinaysa raalli ahaanshihiisa iyo inay raacayso waxa uu doonayo aakhiriya adduun reerkooda iyo mustaqbalkooda uu danta ugu jidho ay ku garab istaagayso oo ku maqlayso oo ninkeeda ku adeecayso intaas aad sheegtayoo dhan ya waxaa u dhigantaa arrintaasay qabato inay gabadhu ninkeeda wanaajiso raalli ahaanshihiisa raadiso maaragtay raalli ka dhigto ilaahay dee ku adeecdo wixii ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ay fareenoo wixii aan ka soo horjeedin inay ku adeecdo ku garab istaagto maaragtay ay ku raacdo wixii wanaaga ay maqasho adeecdo ninkeeda ay wanaajiso gurigeedaasayta danteeda ay garato gabadhaasayta arrintaa waxaasoo dhan miisaankaas aad soo sheegto dhan arrintaasaa u dhiganta bal ka warrama arrintaa allahu akbar waa nimco weyn gabadhii hadda markay arrintaa maqashay way soo noqotay asmaa iyadoo wejigeedii dhalaalayo barwaaqaysanaysa tawxiidsanaysa takbiirsanaysa bishaaraysanaysa yaa uu farxad ku jirta nebigu hadal ku yiri calayhi salaatu wasalaam ya nebigu hadal ku yiri calayhi salaatu wasalaam ayay dumarkii ugu bishaaraysay inuu u sheegtay ilaahay raalli ha ka noqdo rabbi subxaanahu watacaala jalla fi culaa jalla jalaaluhu markaa dee nebigeennuna waa inoo sheegay sooma calayhi salaatu wasalaam gabadhii shanteeda salaadoo tukata ya maaragtay bisheeda ramadaanna soonta sawjkeedana adeecda farjigeedana ilaahay iidankiisa xifdisata oo xumaantii iyo gogol dhaafkii iska ilaalisa oo ilaahay subxaanahu watacaala uga baqata nafteeda oo ilaahay ka baqata marka arrintaasi hadday gabadhu intaas samayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maaragtay waxaa jannada 8 ilbaaboo jannada mid alla midkay doonta iyo ka gelaysaa gabadhaas hawshaasayta inayna qabanno marka dhexda u xiranno runtii waa arrin weyn arrintaasayta asmaa ay noo soo guurisay radiallahu tacaala canha waardaa afhayeenkii dumarkay ahayd asmaa bintu yasiid radiallahu tacaala canha waardaa nebiga calayhi salaatu wasalaam umahaadka waa iyada aada ugu dhoweyd la walaal ahayd caawini jidhay garabkooda ahayd qoftii la dhihi jiray hooyo caaisha radiallahu tacaala canha waardaa markay aqalgalkeedii ka sheekaynayso qoftii diyaarisay oo siirada hooyo caaishana waa inagii kusoo marnay allah ka raalli noqde
qoftii diyaarisay asmaa bintu yasiid iyo gabdho kaloo ansaariyaada oo saxaabiyaada ayay ahaayeen oo soo qurxisay ayadaa hooyo caaisho soo qurxisay oo diyaarisay oo rasuulka u dhiibtay calayhi salaatu wasalaam waana iyadii maaragtay dadkii meesha la joogay ayay ahayd markuu nabigu la kulmayay hooyo caaisho loo soo galbinayay allah raalli ka noqday salawaatullahi wasalaamu caleyh saasay nabiga ugu dhaweyd nabiga axaadiistay ka warisay axaadiis aad u cajiib badan axaadiiso badan sida maaragtay kasoo qaad oo kaleeto ciddada iyo hawsheeda iyo furitaanka waxaa la yidhi qoftani waxay ahayd qoftii u horreysay oo aayadaha dalaaqa iyo ka hadlaaya iyo ciddada iyo howlahooda intaysan soo degin qoftii u horreysay oo waxay ahayd la furo bay ahayd oo arrimahaas ay kusoo degeen sharaaicdaas sidoo kaleeto waxay ahayd baliya asmaa bintu yasiid radiallahu tacaala canha wa ardaa axaadiista nebiga ka wariyay qof aad u caqli badan aad u faham badan caalimada cilmi badan ayay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistay ka warisay waxaa ka mid ah cajaa'ib leh in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay ku yiri uu yiri nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu nabigeenu yiri calayhi salaatu maalin maalmaha ka mid ah inuu iyada nabiga markay intay u timi nabiga markay la baayactamayso weeyaa weliba la dhahaa inay maaragtay gacanteeda inuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo laba jijimoodoo ku jira markaasay tuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri iska tuur jijim ahan ma waxaad doonaysaa laba jijimood oo naara in lagu xiro inay markaa iska tuurtay oo sidaasayta ay ku sadaqaysatay jijimaheedii xadiiskaasayta nabiga way ka warisay calayhi salaatu wasalaam axaadiistay warisuu ka mid ahaa sidoo kaleeto waxaa kaloo ka mid ahaa xadiista rasuulka ka warisay calayhi salaatu wasalaam inuu nabigu yiri maalin maalmaha ka mid ah xalqadihii iyo duruustii ee tegaysa waaye rag iyo dumarba la dhegaysanayay masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ma idiin sheegaa kuwa idinkugu akhyaarsan markaas waxay dhaheen saxaawo idinkugu fiican yacni haabay dhaheen yaa rasuulallah sallallahu alay wasallam balaa yaa rasuulallah sallallahu alay wasallam wuxuu yiri waa midka markii la arko qofka markii la arko alla lagu xasuusto markii qofka la arko alla la xasuustaa kuwaas way kuwa idinkugu akhyaarsan idinkugu fiican ma idiin sheega haddana wii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma idiin sheega kuwa idinkugu sharka badan haabay dhaheen balaa yaa rasuulallah sallallahu alay wasallam waa kuwa maaragtay dadka la dhex mara namiimada iyo isku dirka oo fasahaadiya dadka isjecelo axibada ah fasahaadiya oo isku dira dadka intaa namiimo iyo isku dir iyo xanta iyo belada iyo dadka maaragtay masaakiinta oo dembiga aan lahayn dembiga geliya ama iyagaba xanta oo dhibaateeya dadkaas weeye yiri dadka idinkugu sharka badan qofka idinkugu shar badan qofka waxa sita la socda isku dirka iyo xanta iyo dhibaatada iyo dadka isjecel intaa kala goynaya isku diraya maaragtay dadkii maaragtay dariskii walaalihii muslimiin intaa ku dhex jira ummadda un kharib iyo isku dir iyo xan iyo namiimo iyo intaa wax la dhex soconaya dadka kii aan dembiga la xataa dembiga kusoo jiidaya ama isagii dhibaataynaya ama dadkii dembi ku ridaya marka kuwaasayta waa ilaahayna kama dhiga rabbi subxaana watacaala jalla fi culaa jalla jalaaluh maalin maalmaha ka mid a nabiga xataa cuntay u sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam waxay tiri maalin maalmaha ka mid a intaan cunto soo sameeyey muufa iyo xoogaa sabiiba iyo anoo banaanka la taagan la sugayo rasuulka calayhi salaatu inuu soo baxo masaajidkiisa oo inaan siiyo baa nabigu markuu arkay calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay buu yiri soo baxay nabigu rag badan oo ansaara intuu soo waday buu gurigeenii maaragtay uu yimi rasuulka calayhi salaam cuntadii la keenay meeshii bay ku cuneen ilaa 40 qof oo raga oo ansaariya ah ay halkaa kula cuneen rasuulka calayhi salaam sixnigeeni ka cuneen muufada iyo wixii lagu darayba ay halkaa ku cuneen waxay tiri oo biyihii ka cabeen bahalkoodii haragga biyaha lagu shubaayay bay tiri kadib waxay tiri markii nabiga calayhi salaam ilaahay si u barakeeyay cuntada xoogaaga muufada xoogaaga sabiibka iyo wax waa ka alla barakeeyay intaasoo nabiga calayhi salaam uu ku casumay oo ragga gurigeeda ay yimaadeen ku cuneen waxay tiri nabiga markii calayhi salaam saxaabadii tageen ka dhargeen wixii noo haray bay tiri barakadii nabiga calayhi salaam inuu gurigooda yimaado calayhi salaatu wasalaam cuntada cuno ee ku casunto khayrka inabada gurigeena sidiiba u barakoobay oo barakaya khayr kama suulin marka asmaa binti yasiid radiallahu tacaala canha wardaa qofta cajaa'ibta lahayd bay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistay warisay waxaa ka mid oo kaleeto dahaarada markay noqoto nabiga calayhi salaatu wasalaam inay u timiye weydiisay dumarkeennu sidaynu iskaga daahirinayno markii nifaaskii ama dhiiggii xaydka iyo qofta dumarka macduurka ee noqoto siday isu daahirinayso markuu dhiigga ka go'o
markaasayto inay maaragtay weydiisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegay nabiga calayhi salaam say u qubaysan lahayd iyo siday isu daahirsan lahayd yani xaqi kama aysan xishoon jirin haweenka ansaareed allaha raalli ka noqde siday khayrka sidii hooyo umu salama allaha raalli ka noqday hooyo Caaisha bay inoo sheegeen ridwaanullahi tacaala ajmaciin kuwa xaqooda diintooda barta ayay ahaayeen aysan ka xishoonin siday maaragtay u cadaystaan xaqii siday u qaadan lahaayeen marka u bayaansadaan marka maxaa dhacay inay weydiisay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay inay sidrigii ku qubaysato ay gabdhuhu isku daahiriyaan yani booskii saabuunta u jooga madaxii lagu dhaqo iyo jirkii cadarkii miskigana la marsado oo la isku daahiriyo isagana meeshii dhiiggu soo maray la raaciyo marka xoogaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri markaas waxay tiri oo see cadarka miskiga ah see ugu daahara qaata markaas yiri subxaanallah nabigu wuu xishooday nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabar maaragtay bikra ah wuu ka xishood badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo gurigeeda ku jirta makhadii ah wuu ka xishood badnaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam siduu u xishoon jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaas wuxuu yiri subxaan allahi isku daahiri hooyo Caaisha markaa jiiday oo u sheegtay meeshii dhiiggu soo maray inay raaciso cadarka dawana uu ku jiray caafimaad bismillah allahumma salli wa sallam ala nabiyina maxamed haddii cadarkaasi ito aadan miskiga cad ama madow kambudada ah ma aha haddaadan haysana cadar alla cadarkii aan alcohol lahayn markii dhiigga la iska daahirina in hawshaa lagu sameeyo waa wax caafimaad ku jira faa'iido badan iyo barako badan laga arkay xadiiska ayaa inoo soo guuriyay iyada way asmaa radiyallahu ta'ala anha warda ilaahay raalliha ka noqdo asmaa sidaasay nabigii calayhi salaatu wasalaam ay garab ugu ahayd maaragtay umahaadkeena ridwaanullahi ta'ala ajmaciin ay garab ugu ahayd saxaabad gabdhihii kale saxaabiyaadka garab ugu ahayd afhayeen ugu ahayd afhayeenkii dumarka yani khadiibatu nisaa afhayeenkii dumarkay u ahayd su-aalaha xataa axaadiistay warinaysa xalqadaha markay ka sheekeynaysa waxaa ka mid ahaa in maalmaha ka mida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri ma dhacdaa in dumarkuna ay ka sheekeeyaan raggoodii iyaga waxa dhex mara ragguna ay ka sheekeeyaan dumarkooda iyo iyaga waxa dhex mara saxaabadii rag iyo dumarba waa la aamusay maalinta xalqada darsiga la qaadanay ilaa ay iyadu hadashay tiri nacam yaa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam iyaguna waa sameeyaan annaguna waa sameynaa rag iyo dumarba arrimaha waa la sameeyaa uu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii waxaa sameeya oo saas dadkii iskaga hadla waa sidii laba shaydaan oo banaanka ku kulmo dadkuna fiirsanayaan marka khatartaas ay leedahay arrimahaasna inaan laga sheekaynin oo la xurmeeyo oo la is asturo sidii ilaahayba kuwa asturay gurigaaga kuugu asturay inaa isu asturtid ka arrimaha aan banaanayn ka mid tahay waxaa ka mid oo kaleeto axaadiista ay warisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay tiri maalmaha ka mid a masaajidka annagoo fadhina dumar haddaanu nahay inuu nabiguna salaanay oo salaantii gacantiisa saasna ugu soo ishaaray isagoo na salaamaya salawaatullahi wasalaamu calayh marka qofta qiimaha badan bay ahayd asmaa radiyallahu ta'ala anha warda allah ka raali noqdo cimri baa ilaahay siiyey rabbi subxaanahu wa ta'ala ilaahay rabbi subxaanahu wa ta'ala na raaliha ka noqdo waxaa ka mid ah jihaadadii markuu nabigu jihaaday calayhi salaatu wasalaam inay raaci jidhay inay maaragtay ka qayb geli jidhay sidoo kaleeto in maaragtay ay maaragtay nabigu markuu rabbigiisa la kulmay salawaatullahi wasalaamu calayh xilligii abubakar inay khaliifatu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam uu noqdayna inay sidii ay jihaadka u raaci jirtay saxaabada ilaa ay ka waqacdii dhacday oo dagaalkii maaragtay yarmuug ay ka qayb gashay oo maaragtay ay saxaabadii raacday oo Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu warda uu hogaaminayay maaragtay ruumaankana lala dagaalamayay dowladii markaa ruumaanka oo jirtay lala dagaalamayay dagaalkii badnaa oo 240,000 meel ciidamo ah ay soo keeneen muslimiintuna markaas ay 36,000 miyay ahaayeen markaas ay ciidanka islaamkana saasan rajeynaa inay ahayd dagaalkaas ay reer Room lala dagaalamayay ruumaanka lala dagaalamayay maalintaas ay ka qayb gashay qiyaayad maartay uu hogaamiyahana uu ahaa Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu warda saxaaba ajilla ah Ikrama uu ku jiray saxaaba ajilla ay ku jirto kamid ahaa maaragtay Abu Ubayda Amir ibn Jarrah ridwanullahi ta'ala ajmaciin dagaalka ajaa'ibta lahaa oo runtii dagaal aad u adag ah laakiin ilaahay iyo muslimiinta guushi siiyay waxay sideeda caadadu u ahayd inay maartay gabdhihii ka qayb galeen waxa xataa joogay maartay Hind bint Utba kamid ahayd dadka halka ka qayb galay gabdho badan oo saxaabiyada joogay oo cuntadii diyaarinay ciidanka u diyaarinay biyihii u diyaarinay dhaawac qaadayay daweynayay hawlahaas oo dhan qabanay cuntada u karinayay
iyadoo khaymadeedii joogta arrintii markay dhanaanaatay tiirkii khaymadeeda birihii ama tiirarkii khaymada ku samaysnayd mid ka mida intay siibatay ayay ku dishay 9 ka mid ah maaragtay ciidankii gaalada 9 ka mid ah ayay halkaa ku dishay 9 ka mid ah ayay ku dishay ilaahay fadligiisa raxmadiisa ka warantay maaragtay maalintaasayta waxaa kaloo wacdaraha dhigtay iyadana qoftii la dhihi jiray raalli allaha ka noqdee maaragtay Ummu Xakiim bintu Xaaris radiallahu tacaala canha waardaa ayaa iyaduna maaragtay sidaas oo kale 7 halkaasayta iyaduna kaga takhallustay allaha ka raalli noqdo ilaahay raalli dhammaantooda ka noqdo geesiyad ayay ahayd nolol wanaagsan oo aad u qiimo badan oo cibaado iyo maaragtay khayr ku camirtay dikri ilaahay ayay ku noolayd ilaahay raalli ha ka noqdo maaragtay ilaa ay soo gaadhay maaragtay ay geeriyootay oo ilaahay ay la kulantay allaha ka raalli noqde maaragtay khilaafadii amiirulmu'miniin Cuthmaan ibn Cafaan radiallahu tacaala canhu warda sanadkii 30aad ee hijriga ayay dhimataa la dhahaa maaragtay madiinay ku dhimatay qabuuraha baqiic bayna ku duugan tahay ummahaadkeennii iyo gabdhihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maaragtay ehelkiisa halkaa ku duugan ayay la duugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh asmaa bintu yasiid asmaa bintu sakan radiallahu tacaala canha warda allah raalli ka noqdo qoftaa qaymaha badan bay ahayd maaragtay sidaasna garab iyo gaashaan uga ahayd kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigeennana maaragtay sidaa u garab istaagnayd ilaahay raalli ha ka noqdo subxaana watacaala diinteeda maaragtay u dadaalaysay iyo cibaadadeedan ku dadaalaysay alla ka baqeeday sida khayrka iyo wanaagga u raadinaysay iyadii gabdhihii kale oo saxaabiyaadka ahaa oo runtii innagana sidaasaa laynoo ka baahan yahay naftaydiyo tiinana cabsida ilaha u dardaarma adduunyo qaymo male tan waynu ka tegaynaa harka labadiisa gelin waa inaguna aynu ku dadaalno gabadhii reer lahoy reerkaaga xajiso ku sabir adkayso waxaa laga yaabaa darajo aadan gaari lahayn aakhiro in ilaahay odagaas iyo caruurtaasaa u sabrayso gurigaas iyo hawshiisaa u sabrayso naftaada aad xifdinayso aad ilaalinayso haddii lagula joogay haddii lagaa maqan yahayba inaad mid ilaahay ka baqanaysa tahay carabkeeda lugteeda gacmaheeda yaa ilaalinaysa gurigeedana ilaashanaysa ilaahay isku xiraysa alle inuu u jeedo og ilaaheeda ka baqaynaysa maanta hawlo badan baa iska batay yacni sha'nigu waa badan yahay ilaahay wax sharahayna ka xijaabo ilaahayna cawrada islaamka allah asturo warsanay wax khayrna allah inoo soo yeeriyo kuwa kitaabka ilaahay ku noolaada oo maaragtay weheshada oo barta oo miisaankooda aakhiro ku camira allahayna ka dhigo ilaahay rabbi subxaana watacaala kuwa maaragtay dikrigiisa badiya laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam istikfaartii aadaan u badino weliba haween haddaynu nahay sadaqadii aynu badsanno guriga aakhiro aynu qurxinno guriga adduunyayaynu ku mashquulin guryaha adduunka wixii inoo yaalla ilaahay baa inoo barakayna waxaynu helno guriga aakhiro aan ku qurxinno kaasa qurxinno ka baahan أما وحنا أدونك كوهاي سنة إلهي بأنه بركينا يا اللهم اجعلنا مباركين إنما كنا يا وحنا هاي سنة ددي الدنيا الله إنه بركيه إلهينا شريع شيطان الله إنك حجابه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه محيري ورهن نقولنا عروتي أدونك عروتي آخر النقضة عروتي آخر إنه نقولنا إلهي عروتي آخر إنك دق عرور الدنيا الله إنك ما دق ماشي إنه كنا سنة إنه واللي قول لي بانا يقول قبر واقعي سنة فرحتي ودارتي آخره الله إنه هجاتي ربي سبحانه وتعالى kuwa adoomada iska cafiya kuwa dhawiya kuwa fogba gurigaas iyo hawsha iyo danahaas iyo loo sabrayana ilaahay ka ajar gurbisada lacala allah waa laba beri waxani waa laga baxayaa darajo aadana aakhiro gaari lahayn arrimahaas alla kugu gaarsiiya laga yaabaa sidaasuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam 8 ilbaabo jannada gabadhii ninkeeda adeecda maaragtay isagoo raalli u ka yahayna ama iyadu ay ka hormarta ama asagoo ka hormarana hadda inay sidaa jannadii ilaahay ku galayso marka allah inoo naxariisto allah inoo fududeeyo allah inoo asturo aan samirno waalidkeennana aan khayrka shaqaysano duca ka dalbanno ilaahay waalidkana u dadaalno ama kuwa odageenna ha noqdeen ama ha noqdeen kuwa maaragtay waalidkiina dhalayba aan u dadaalno xaqooda aan iska ilaalino ilaahayna hayna asturo adduunyo aakhiro caafiya caafimaad iyo barwaaqo allah ina siiyo dikriga ilaahayna aan badino 100 jeer subaxdii 100 jeer galabtii laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir si maaragtay xirsi xirna ay shaydaanka inoo ka noqoto 100 xasanaada lagu qoray 100 dembi lagaa tiray
toban adoon oo duriyadii nabi ismaaciil calayhi salaam adigoo lacagtaada kusoo gaday oo xoreeyey ajarkaa helay laguu qorayo ma dheedheelba waxaasoo dhan maxaa isku sii fuuqsaday shaydaanka iyo shaydaan iyo sharkiisana in ilaahay shaydaanba uu ilaahay kaaga xijaabay xirsi xirkaaga noqonaysa maxaa inoo ka baahi badan maanta marka aan ku dadaalna khayrka warsanaya wax khayr iyo warbaraka idin rajaynayaa wixii khayran ku hadla allah ku mahadsan alxamdulilaahi rabbil caalamiin wixii aan gafana naftayda iyo shaydaan allah iyo rasuulna beri bay ka yihiin laa ilaaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illaa billaah warsanaya wax khayr iyo warbarako ayaa idin allah inoo soo yeeriyo ilaahay waalidkeena culimadeena muslimiinta iyo mu'miniinta intiina ka hormarta allahu naxariista intii noolna allah inoo xifdiyo اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منه والأموات اللهم ارحم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إله الرسول كأننا وسيري فضيل الله سي مقامك محمود كالله يباهنا الله كصوصار صلوات الله وسلام عليه اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار اللهم ارحم للمهاجرين والأنصار إلهي نعورد إسلام خاصرو إسلام كالله وقرقارو عدونا الله سبحانه وتعالى هجبي شركودنا الله كعليو muslimiintana allah mideeyo waxdadooda hal allah ka dhigo allah guul iyo nasri siiyo khayrkuna waa soo socda abshiruu bilkhayr nasrigu waa imaan waxa lagu jirana waa laga bixi ilaahay khayrkiisa soo ifaaya waa dhow yahay yaaynu isdhiganin yaa dhexda hala dhuuqsada allana hala baryo khayrkuna waa soo ifaaya waxaan sadaqaysana dumarow guriga aakhira aan wax horumarsano adduunyadeenu ku mashquulin adduunyo qayma ma leh خير بأيدين رجينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته